السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوين وناكسن meel walbo aad iga daawanaysaan. Waxaan ahay Bakar Maxamed Cabdulle Ustaad Tsunami. Halka aad igala socotaana waa Akram Online College. Maadooyinka scientifiga, luqadda Englishka, geography iyo history, technology-ga iyo maadooyin kale ayaad ka baran kartaa Akram Online College waliba adiga oo gurigaaga jooga. aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan ardada ku taxan Akram Online College waxna ka faa'iideysata gaar ahaan kuwa haweenadan dambe ku taxan aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta muuqaalka like saarta aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inta comment-iga ka soo bixisa iyaguna sidoo kale I like you too. إن شاء الله أسبوع ما أنت بدن أربعة واي أنت بدن سكولات كما شقيان بريفت يذا معاهد عيوة للسوداء سكولات نظامية كوضع معاهدة أنا يس لكن أنا وحن قادنا كلمة ذا قادنا يعني tomorrow and next tomorrow وحين قناة الجمعية خميس أسبوع مركو حكا ديغانتاي سبتي أحد اثنين ثلاثة وأربعة إنا عاو خميسة أنا 10 قادنا إنه إلى هاي بنك جماعة علنا وأسبوعا نوافجي أنت كلنا ورجينا إلى نوافجي بعدنا سؤالا بش وحي مرة يصادر عن وصدح والسدح هذا ماج أيام كجرنا أكرم أونلاين كوليج وحو قادنا يا أرضي عصب أرضي داس أو لغو بالله بدونه نظام كعصب سدح ذهبا نظام كاسوا in saddex hab kaliya ardada xooga laga saaro oo ah reading, translation and speaking saddexdaas kaliya waa laga yaabaa in adinka aad aaminsaneedeen waa hore in si kala wax loo barto si kala luqadda in loo barto ay u baahan tahay aniga xitaa waxaan aaminsanaa 2020 ilaa 2021 bisha January ay ka dhamaato waxaan aaminsanaa qaanuun oo ardaydu qaarna wax aan ku baraayay لكن بشان كهوريسة فبراير نظام كا يعني كرجلين دونا دمان ونسود وينيا أنت فكر كاسي إن شاء الله لو بالله بدونه نخلنا دونا كوي يجوري استح أقول له جاره مدقة وأنا أيضا لو برا إن شاء الله 10 كان أيام جود قال دونا أرضي ذي قالي أهو صاحبي ذي قالي أهو معلمين تيجي وناك سنايو فريسك وحن كجا هذا النام موضوعي كلا دوان فريسك وحن لهنا وحو عاوية speaking كا كارهان وحو عاوية وغشة كيسك مركا عن إنجليز كقاعدة إنه وأرضي بدن بالله أستاذ 10 دقائق يعني سموه 10 إن لبضيا في عن إن لبضيو جسي وحيلتها أسبوع إن 10 قاعدنا وأديكوا بريفت جوجو أكل اللي قتها سان رجينا وهي هاي 10 كأيام قد قلتنا إن شاء الله أوكي 10 كان عاود وكهاد لدونا أرضي miscellaneous topics وموضوعية كلا دوان يعني 10 نروح عن كسو هاد ليني مربا مالان أهمية سينيني لكن عاوة 10 كان قديسة مال قار أهمية مسين دونه وحان أهاد لك دونا سي جود أيام أهاد لك دونا خيبا مهم وهايانا كجرة. Do you understand؟ ما فهمتي Do you understand؟ ما فهمتي قفاد لهاد ليسا وحبت ويدينيسا أما سؤالها أهات أما وحبت كعصنيسا مركاسا وحالنا Do you understand؟ ما فهمتي Do you understand؟ ما فهمتي Do you understand؟ Do you understand what I am saying؟ ما فهمتي وحن أن لهايا Do you understand what I'm saying؟ وحن لهايا ما فهميسا نوالو فصيري كرا ما فهمتان والله فصيل كرا ما فهمتين والله فصيل كرا Wait, do you understand ما فهميسا what I'm saying وحا عن لها يا ما فهميسا Do you hear me ما يمقشا Are you listening to me ما يدقى سنيسا Are you listening to me ما يدقى Are you listening to me ما يدقى سنيسا Wait سؤالها دمانتو Yes, no, ayaa looga jawaabaya. Do you understand? Yes, I do. Do you understand what I'm saying? Yes, I do. Do you hear me? Yes, I do. Are you listening to me? Yes, I am. Wow, Ustaz Tsunami, what is the difference between yes, I do and yes, I am? Because here, Ustaz Al-Azim, are you ayaa taala, right?
laakiin kuwa kale maxay ahaayeen there is a do okay you waayahay bal negative aan ka bixino do you understand no I don't do you understand what I'm saying no I don't do you hear me no I don't are you listening to me no I am not understand yes if the question is about are or is the question maker is or are we say yes I am no I am not insha Allah marka idin baraayo isku xirka hadalka ama sida hadalka loo sameeyo ayaad ku baran doontaan haduu Ilaahay qadaro oo aad adinkana waqti noloshiina kamid ah aad ii hifaysaan waaya jawaabahaas hoos ay ku imaan doonaan laakiin sida uga jawaabna waa ka bixinay okay are you paying attention okay waa idin kala gelinayaa mararka qaar muuqaalka buuq soo furmaayo mootada aan maqlaysiin baabuurka aan maqlaysiin because waxaan fadhiyaa xafiiskayga wuxuu ku yaalaa laami si aad hadhow haddii aad ii baahataan oo muqdisho aad imaadaan dee aadan ugu wareerin oo xaafad aadan u soo gelin xafiis kale uu jiraa oo igu yaala xaafad luuqa laakiin hadda xaafadan xoogaa laami ay saaranaa qofka meel uu ku wareeri kara maaha mootadaada bajaajta ayaa lagugu keeni doonaa agteeda way are you paying attention markii la are you paying attention ma ii dhug leedahay waay dhug ma ii leedahay ma ii dhug leedahay bimacnaa dareenkaaga xaggayga ma soo jira are you paying attention meela socota I'm talking to you adigan kula hadlaaya do you hear what I'm saying or ma maqlaysaa waxaan dhahayo do you hear what I'm saying waxaan dhahay maqlaysaa do you follow me meela socota do you follow me students arday meela socotiin means what means ma ifahmuusiin waxa aan sheegay ma fahmuusiin do you follow me meela socotiin you are with me right waad ila socotiin soo maaha you are with me right soo ma ila socotaan macnaha cashirka aan sharxaayo hadalka aan sheegayo waa fahmaysiin soo maaha saasaa laga wadaa I understand su-aashii oo kale kaga jawaabayso do you understand I understand weliba su-aasha markay tahay do you understand yes no why su'aal yes na qada khasab waa ma fahmaysaa waa inaan dhahaa ha waa fahmaya laakiin waxa ka fiican ba yes I do hadii su-aasha do ka bilaawad yes I do no I don't the best speaking English taasaa loo isticmaalaa okay I understand waa fahmaya I understand waa fahmaya I understand that taas waa fahmaya I understand that taas waa fahmaya I understand what you are saying waa fahmaya waxaad leedahay I understand what you are saying waxaad oranayso waxaad dhahayso waan fahmaya I understand what you mean waan fahmay waxaad ka wado waan fahmaya waxa aad ula jeedo I know what you are talking about waan ogahay waxaad ka hadlayso I know what you are talking about waan aqaanaa waan garanayaa waxa aad ka hadlayso okay there is no question here or jawaab baahan only answers waa kuwan I hear what you are saying waan maqlaa waxaad leedahay I hear what you are saying waan maqlaa waxaad leedahay what do you mean maxaa ka wadaa what do you mean maxaa ka wadaa su-aashan oo kale marka lagu weydiiyo waxaad dhihi kartaa I say waxaan dhahay su-aasha ku soo celinay marka tusaale aan qofku waxaa dhahday waxaad tiri my pleasure markaas what do you mean markaasaan leedahay I say my pleasure ama luqadka English kula hadashay tusaalehan waxaa dhahday let the pen out of the cat markaas what do you mean maxaa ka wadaa I say let the pen out of the bag macnaha dhabaqiyaad ugu soo celinaysaa oo kala dhigaysaa ama waxaad dhigi kartaa I mean let the pen out of the bag ama waxaad dhigi kartaaba Englishkaas ma ahana mid kale oo isticmaali kartaa oo u fududeynaysaa I mean release what you have alada okay you are missing the point mawduuca waad ka leexanaysaa you are missing the point mawduuca waad ka leexanaysaa that is not the point taasi ma ahayn mawduuca taasi ma ahayn that's not the point taasi mawduuca ma ahayn I don't get your point
ما فهمين ujeedkaaga macnaha meesha aad wax u wado ma fahmin I don't follow your teacher macallin ma kula socdo I don't follow your teacher macallin ma kula socdo bimacnaa macallin ma kula socdo bimacnaa macallin ma ku fahmooy macallin casharka dhahoosid ma fahmooy waxa sharxoosid ma fahmooy I don't follow you aha war sheekaysiga qaadanuna waxa dhahaynaa I don't follow you please sister abaya ma kula jaan qaadsani ma kula socdo macnaha waa iska hadlaysaa hadalkaaga uu iska socdaa ma ku fahmayo I don't follow you okay let us go I don't understand what you mean ma fahmayo waxa leedahay I don't understand what you mean ma fahmayo waxaad ula jeedo you are not listening what I'm saying ma dhageysanaysid waxaan dhahayo you are not listening what I am saying waxaan dhahayo maba dhageysanaysidba that is not the point taasi maaha mawduuca meesha ma ahayn arinku sidaas ma ahayn let me clarify that aan ku cadeeyo let me clarify that aan ku cadeeyo what do you mean by that taas maxaa ka wadaa what do you mean by that maxaa ula jeedaa waayahay allow me to clarify that ii ogolow inaan ku cadeeyo ii ogolow inaan ku cadeeyo inaan ku bayaani ii ogolow allow me to clarify that ii ogolow inaan ku cadeeyo qofaa wuxuu dhahaa because wuxuu dhahayaa I don't listen to you because I know you are telling me lie ma ku dhageysanay maxaa yeelay beena ii sheegaysaa markaas waxaa leeyahay allow me to clarify that please fadlan ii ogolaataa inaan ku cadeeyo listen to me ii dhageyso let me to clarify that listen to me aan ku cadeeyo ii dhageyso what are you saying maxaa leedahay what is the point muhiimaddu maxay tahay what is the point targetka waa maxay that is not what I said taas ma ahan waxaan dhahay macnaha kanoo kale waa maxay qof warkii laga been abuuranayo waay macnaha qof war uu dhihin la dhahay markaas wuxuu leeyahay that is not what I said ma ahan waxaas waxa anigu dhahay that's what I said ani ma dhihin waxaas misaal ahaan hooyaa ku qabatay maxaas u dhahday that's not what I said mom hooyo anigu waxaas ma dhihin you are putting words in my mouth afkaad ii gelinaysaa you are putting words in my mouth afkaad ii gelinaysaa waxaan dhihin baad igu camcaminaysaa that is not what I mean taasi ma ahayn waxaan ka waday waxaas ma ka wadin aniga didn't you say to your brother leave the home bal halkaaga miyaadan ku dhihin guriga ka tag yeah that's not what I mean mom hooy waxaas ma ka wadin aniga qafaad tusaale ahaan dee gabdhaha waa iska dhib badan waa taqaanaaye abbaay baa si kale kuu fahantay kaasaa waxay ku dhahday waad khaldan tahay you are wrong enough please don't call me back khalad ay kuu fahantay macnaha markaasaa waxaa laha that's not what I mean baby laakiin baby ha u isticmaalin gabdhaha soomaalida way necab yihiin fiancé iska dheh yeah waxaa iska dhahdaa waxaa la dhahay macaan badan maxay ahayd yeah sweetheart that's not what I mean sweetheart please listen to me let me clarify that aan ku cadeeyo macaan badanaya qataas ma ka wadi markaa leedahay you have twisted my words hadalkayga waa qaloocisay you have twisted my words hadalkayga waa qaloocisay Allah sees you ilaaha ku jeedo you have twisted my words hadalkaygii waad qaloocisay Allah sees you ilaaha ku jeedo Allah knows who is right me I and you or you and me ilaahay waa og yahay qofka khaldan qofka saxan aniga iyo adiga maxaa leedahay you have twisted my words hadalkayga aad qaloocisay thank you halkaa ha inoo joogo insha Allah waxaa inoo balanaa habeenka axadda oo haddana sidii oo kale aan u soo bilaabi doono cashiradeenna haddii aad nagu cusub tahay fadlan kanaalka nagu soo biir nala baashaal nala saaxiib commenting nagula sheekayso like-tana sii anigana waxaan kuu faa'iideyno aan kala faa'iidaysano haddii aad naga mid tahayna saaxiib if you like me haddaa i jeceshahay click the bottom the like bottom the thumb bottom haddii aad jeceshahay click easy okay
وأسك كفتم بديا معك هذا النقطة أنت سينو جوجا عاوة إن شاء الله يعني هبينا الخميس إيه هبينا الجمعة هدي عن جانس هلا أي تراينا مقال كل ذي سوق اليوم هدي مقال الفنفور كي وحياة مدام امتحان أسلوبي هاي إيه إن شاء الله سكبر جندنا أنا أقول واحد بينات إن شاء الله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.